kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiin meel kasta aad joogtaan qodobada ugu waaweyn ee barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doono khilaaf cusub oo soo shacbaxay iyo ciidamada qaranka oo isaga soo baxay deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud xilli dagaalamayaasha al-shabaab ay dib ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud yaa fashiliyey howlgallada ka socda gobolka galgaduud oo ay ciidamada dowladda ee dib isaga soo baxeen deegaankii wabxo ay dhowaan ay qabsadeen barnaamij wareedkeenna ayaan ku faahfaahin doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doono xisbiga talada dalka hogaamiya ee damo jadiid oo bilaabay siyaasad cusub oo ay ku bahdilayaan sharafta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wasiir hore oo ku baaqay in la baaro wada shaqeyn ka dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo kooxda argagixisay ee al-shabaab barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa qorshaha cusub ee dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku weerarayso siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumadda qodobada kale ee barnaamij wareedkeena aan ku faahfaahin doono waxaa qayb ka noqon doono xaaladda magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ah mid alluu sahla iyadoo 24 saac ee la soo dhaafay lagu dilay dad kor u dhaafaya ilaa 8 ruux booliiska Soomaaliyeed oo u muuqda mid sugaya in isbeddel uu ku dhaco maadaama amniga magaalada weli uusan ahayn mid hagaagsan barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh oo ay qayb ka yihiin howlgallada weli ka soconaya qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee dalka balse haddii ay tahay markii kugu horreeyey ee aad soo booqatay janalkeenna waxaan kaa codsanayaa in aad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinnada xiisaha leh ee halkan aan soo gelinno mahadsanediin dhammaantiin aan ku bilaabo barnaamij wareedkeenna khilaaf xoog leh oo soo kala dhex galay taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal Odobaa Yuusuf Raage iyo sidoo kale taliye Ismaaciil Cabdimaalig oo ka tirsan beesha Mursade ayaa waxa uu sababay in ciidamada qaranka ay isaga soo baxaan deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud oo maalmo ka hor ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab taliye Ismaaciil Cabdimaalig oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka si gaar ah ciidamada beesha Mursade ee dhawaan la wareegay deegaanka wabxo ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba ciidamadii kumaandooska dalka ay isaga soo baxeen magaalada wabxo sidaasina ay ku qasabtay in ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa kale ee beesha Mursade inay isaga soo baxaan deegaanka oo intaa ku daray in sababta ay wabxo uga soo baxeen ay tahay hagardaamo lagu sameeyey kadib markii ciidanka xoogga dalka ee howlgallada ka dhanka al-shabaab ka waday deegaankaasi si lama filaan ah ay uga soo baxeen magaalada kadib amar uga yimid saraakiisha sarsare ee xoogga dalka oo uu la jeedo taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal Odobaa Yuusuf Raage waxa uu sheegay in asiga iyo ciidamadii beesha Mursade ee uu hogaaminayay ay ka soo baxeen deegaanka kadib cabsi la soo diristay maadaama uu sheegay in ciidanka danab ee xoogga dalka amar uga yimid taliyaha ciidanka xoogga dalka ay uga baxeen deegaanka wabxo sidaasi aawadeedna ciidamada beesha Mursade iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ayna deegaanka sii joogi karin maadaama ay ka war heleen akhbaar ah ee kooxda al-shabaab ay ku soo wajahan tahay kadib markii ciidamada qaranka ay isaga soo baxeen deegaanka wabxo waxaa durbaba deegaankaasi la wareegay gacan ku hayntiisa dagaalyahano ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo ku sugnaa meel aan sidaasi kaga fogeen deegaanka wabxo ayaa waxaa hadda gacanta ku haya maleeshiyaadka al-shabaab oo ay u suuro gashay in dagaal la'aan ay kula wareegaan maadaama khilaaf soo cusboonaaday aawadeed ciidamadii qaranka iyo sidoo kale kuwii beesha Mursaday ee deegaankaasi isaga soo baxeen weli ma jiro wax wara oo dowladda Soomaaliya ay ka soo saartay ka bixista ciidamada dowladda iyo kuwa beesha Mursade ee deegaanka wabxo iyo sidoo kale dib ula wareegidda dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaankaasi ay ula wareegeen qodobreedka xiga ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahinno xisbiga talada dalka hogaamiya ee damo jadiid
ayaa waxay bilaabeen qorshe cusub oo ay ku bahdilayaan siyaasiyiinta iyo sidoo kale mas-uuliyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoona la sheegayo in madaxtooyada qaranka dhaqaalihii ugu badnaa ay ku bixinayso sumcadilka siyaasiyiinta saameynta ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed iyadoona xogihii u dambeeyay ee la helay ay sheegayaan in filla Soomaaliya lacagaha ay bixinayso ay siinayso qaar ka mid ah siyaasiyiintii la soo shaqeeyay dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo iyadoona wasiir hore uu ku baaqay in la baaro wada shaqeynta ka dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo kooxda Al-Shabaab wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa weerar dhinaca afka ah wuxuu ku qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mar ay ahaayeen saaxiibo isku dhow waxa uu sheegay wasiir Goodax Barre in Farmaajo marnaba uusan raalli ka ahayn in lala dagaalamo oo ay meesha ay ka baxaan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa uuna intaa ku daray in Farmaajo isir naceeb gaar ah uu qabo qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed iyo sidoo kale gobollada qaar ee dalka ee dagaalada ay ka socdaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sheegay in nasiib darro weyn ay tahay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda jooga dalka Turkiga uu ku howlan yahay fashilinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda qeybo badan oo ka mid ah dalka inta aan ka aqaan Farmaajo marnaba raalli kama ahayn in dagaal la galo maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana u dheer isir naceeb qaar ka mid ah gobollada iyo beelaha qaar oo uu muddadii uu xilka hayay ee yareed in si wanaagsan uu ula dhaqmo isagoona Ankara jooga hadda wuxuu ka wadaa howlgallo lagu fashilinayo dagaalada ka socda dalka ayuu yidhi wasiir Goodax Barre wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre ayaana ugu baaqay hay'adaha amniga in ay baaraan wada shaqeynta ka dhaxaysa Al-Shabaab iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa qorshe cusub oo u muuqda in xisbiga talada haya ee Damo Jadiid uu ku ugaarsanayo isla markaana uu ku sumcadilayo siyaasiyiinta sida weyn shacabka Soomaaliyeed saameynta muuqato iyo midda aan muuqan uga dhaxleh qodobareedka ugu dambeeya ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahino xaalka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxa u muuqdaa mid allow sahla iyadoona saacadihii la soo dhaafay kooxo hubeysan oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalanyahanada kooxda Al-Shabaab ay dilal ku dhow ilaa 6 dil oo ay u geysteen ganacsato iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka geysteen qeybo ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho booliiska Soomaaliyeed weli wax wara kama soo saarin dilalkan qorsheysan oo ay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay ku bartilmaameedsanayaan nabadoonnada iyo waxgalka bulshada Soomaaliyeed ayagoona uga argudanayo dagaalada qaraar ee qaar ka mid ah gobollada dalka uga furan booliiska Soomaaliyeed kaliya shir jaraa'id oo ay qabteen waxa ay kaga hadleen mootooyin lagu soo raray waxyaabaha qarxa oo ciidamadu ay u suura gashay in ay kaga hortagaan qeybo ka mid ah degmada Afgooye balse kama hadlin daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee qeybo ka mid ah Muqdisho si bareera kooxo hubeysan oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ka tirsan ay uga geysanayaan 24 saac ee la soo dhaafay tan iyo markii dalka uu ka dhacay isbeddel doorasho waxaa ka dhacay dilalkii ugu badnaa oo loo geystay saraakiil ciidan askar dad shacab ah ganacsato iyo odayaal dhaqan oo aan waxba galabsan iyadoona laamaha amniga aysan jirin wax wara oo arrintaasi ay ka soo saareen booliiska Soomaaliyeed ayaana u muuqda mid isku diyaarinayo isbeddel maadaama taliska ciidanka hadda ay ku socdaan isbeddello uu ku sameynayo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud guud ahaan saaxiibayaal waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa barnaamij wareedkeena inta barnaamijkan kiisi xiga aan ku kulmi doono nabadgelyo dhammaantiin